diyaaradda falay Dubai oo ugu dambeyn ka soo horjeestay nidaamkii Soomaaliya ee lagu hoggaamiyay dadka reer Somaliland iyadoo naqbashay amarada ay ku soo rogtay xukuumadda Somaliland. Diyaaradda falay Dubai ayaa si rasmi ah u joojisay inay weydiiso dadka reer Somaliland nidaamka e-visa Soomaaliya inay soo qaataan kadib markii xukuumadda Somaliland ay si adag uga hortimay arrintaasi iyadoo u qabatay shirkadda muddo 15 maalmood inay ku joojiso haddii kalena laga mamnuuci doono duulimaadyada gudaha Somaliland ay ku timaado. Wararka laga helay ayaa sheegay rakaabkii ku safriyay duulimaadkeedii saaka u dhaxeeyay Dubai iyo Hargeysa inaan cidna lagu khasbin lana weydiin inay soo qaataan e-visa Soomaaliya, taasoo muujinaysa in falay Dubai si buuxda u fulisay amarkii xukuumadda Somaliland. Tallaabadan adag ee Somaliland qaaday ayaa timi kadib markii diyaaradaha qaarkood ay ku jirto falay Dubai ay bilaabeen in rakaabka reer Somaliland ay ku khasban inay soo qaataan e-visa Soomaaliya. Arrintaasi oo ay Somaliland si xun uga cadhootay iyadoo amaro ku soo rogtay shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa dhawaanyaduna joojisay weydiinta e-visa Soomaaliya dadka ku socda Somaliland kadib cadaadis iyo wargelin rasmi ah oo ay ka heshay Somaliland. Ugu dambeyn tallaabadan ay Somaliland qaaday ayaa loo arkaa guul diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo muujinaysa sida ay Somaliland uga go'an tahay difaaceeda madax-bannaanida hawada iyo sidoo kale nidaamka socdaalka. diyaaradda falay Dubai oo ugu dambeyn ka soo horjeestay nidaamkii Soomaaliya ee lagu hoggaamiyay dadka reer Somaliland iyadoo naqbashay amarada ay ku soo rogtay xukuumadda Somaliland. Diyaaradda falay Dubai ayaa si rasmi ah u joojisay inay weydiiso dadka reer Somaliland nidaamka e-visa Soomaaliya inay soo qaataan kadib markii xukuumadda Somaliland ay si adag uga hortimay arrintaasi iyadoo u qabatay shirkadda muddo 15 maalmood inay ku joojiso haddii kalena laga mamnuuci doono duulimaadyada gudaha Somaliland ay ku timaado. Wararka laga helay ayaa rakaabkii ku safriyay duulimaadkeedii saaka u dhaxeeyay Dubai iyo Hargeysa inaan cidna lagu khasbin lana weydiin inay soo qaataan e-visa Soomaaliya, taasoo muujinaysa in falay Dubai si buuxda u fulisay amarkii xukuumadda Somaliland. Tallaabadan adag ee Somaliland qaaday ayaa timi kadib markii diyaaradaha qaarkood ay ku jirto falay Dubai ay bilaabeen in rakaabka reer Somaliland ay ku khasban inay soo qaataan e-visa Soomaaliya. Arrintaasi oo ay Somaliland si xun uga cadhootay iyadoo amaro ku soo rogtay shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa dhawaanyaduna joojisay weydiinta e-visa Soomaaliya dadka ku socda Somaliland kadib cadaadis iyo wargelin rasmi ah oo ay ka heshay Somaliland. Ugu dambeyn tallaabadan ay Somaliland qaaday ayaa loo arkaa guul diblomaasiyadeed iyo mid siyaasadeed oo muujinaysa sida ay Somaliland uga go'an tahay difaaceeda madax-bannaanida hawada iyo sidoo kale nidaamka socdaalka.